yaan dadka musharaxiinta qofkii fiican oo wanaagsan hala doortee yaan la dooran mid aan la rabin yay salagti garayn oo keenin nimanka madaxda oo maamulada madaxda ka ah waa in 101daas qof cidii ay doorato oo noqda xildhibaan ayaguna waa inaysan lacag ku cadaadin qofkii fiican doortaan ana saasa ila quman mideena anu hadda u malayn maayo qorqoran leeyahay Axmed Ducaale kama qayb gali karo doorashada rumor baa iska jira cid waa la jecel yahay waa jirta laakiin u malayn maayo inuu hadda oranayo lagama qayb gali karo ama Axmed Ducaale kama qayb gali karo gaar ahaan ma filahay hadduu yeelana waa mid wax kala wuxuu hore u sameeyay waa ogi aniga igu sameeyay aniga waxaan u sameeyay asaga waligii ma samayn karo sababtoo waxa weeye waa ninkii 3 sano aan meesha joogay dubihii la adeegsaday waa qorqor oo la dhaxay asaga iyo ragga uu wataba cadaada ninkii 2 sano aan dul marayay waa staafkayga kuwii laayay ahayn ciyaalkiisu maalintii baarlamaanka keen cadaado Saleebaan ma oran in gobasheedana awal waa ka aamusaynay laakiin hadda waa dhiganaynaa 2 sanado inaan kormaro aan diyaarad ku kormari jiray qorqorna maalintii ugu horeysay uu tagay ilaa hadda aan la qaabilahay Saleebaan jawaabteeda waa laga rabaa Abdalle iyo Saacadna waa inay arrinta u istaagaan haddii kale waxay noqonaysaa wax kastoo xun inta la sameeyo inaan la isaga daba tagin arrintaas wax ka xun oo na soo mari lahaa ma jirto aniga waa igu dawgalay waa iriday kursigiina wuu fariistay iman amaal gudin rumaan idin sheegayaa amaal gud tiro badana kama rabe cadaaladda kaliya aan ka hadlo waliba waan la shaqeeyay waad ogtihiin markii gaalkacyo asaga la doortay anoo gaalkacyo jooga adinku waa taad ii timaadeen rag badan oo ergaa waxaan go'aansanay in gacan la siiyo oo loo tago oo aanan shuruud xataa ku xirin raggii ila socday maalintaas qaar badan baa fadhiya inaan inta u tagay cidna u mari maayo xumo xujaynahay waa u tagay waan ku wareejiyey inuu shaki igeliyo maantana ka rajayn maayo wax waan iska rabaa hadda laakiin u malaynayo inuu ku sii dheeraanayo sida loo waaniyey oo ah war cadaaladda qofka aan cadaalad samayn aakhiriya adduunyada waa lumahaya anaa og 2016 wixii ka dhacay cadaado hadday soo laabtaan yowmal qiyaama dhacaya Soomaaliya waligay isma oran waagaas wax noocaas ka dhici kara Soomaaliya ragga baasha matirahayaana waa raggii laftiisii qaar badan oo ka mid ah wariyaan sidii cadaadada lagu celin arrinta laga dadaaran ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo qorqor iyo kulligood iyo maamul goboleedyadana qofkii falaa adduunkana waa ku halaagaya aakhirana waa ku naartagaya haddii la rabo ummadda Soomaaliyeed inay toosto cadaalad loo sameeyo wax dadka cadaalad baa deeqda wax kaloo deeqaa ma jiraan anu odaynimadeydii iyo taladaydii intaasaan ku soo jeedinayaa waxaan ku rajo weynahay ninka la yiraahdo Roble ra'iisul wasaaraha waa cusub yahay siyaasadana waa ku cusub yahay gacan la siiyo laguna maaragtay taakuleeyo hawsha uu hayo asagana uu noqdo imtixaan buu ku jiraa si uu guuleysan lahaa oo imtixaanka uu guuleysan lahaa ayuu u fadhiyaa waa in laga helaa inuu guuleysto insha Allah taala si uu noqdo siyaasi weyn oo mustaqbalka soo baxa